waxa weeyaan cudurkan sida ay noo sheegeen dhakhtaradu wuxuu leeyahay sabab baa keentay wuxuuna leeyahay dawo oo shaki male in dawadiisa la heli doono laakiin arrin kalea jirto ayna dhakhtaradu inoo sheegin oo culumta kale laga dhexeli karayo marka cudurkan corona waa cudur sababtiisa la garanayo meeshuu ka dhashay iyo wuxuu yimid sida looga hortagayana way isla xadideen culummadu dalkan weyn ee China lacagan caadi ahayn 130 milyaar oo dollar buu ugu talagalay burburinta iyo ka hortagga cudurkan awood weynna ilaahay waa siiyey tabaaraka wa tacaala wadankan China arrinta markaas aan soo jiidatay waxa weeye sababaha cudurka keenay haddii la raaci lahaa manhajka ilaahay qur'aanka iyo xadiiska nebiga iyo fidradda caafimaad qabtay bini aadanka cudurkani adduunka ma yimaadeen haddana dawadiisa markay maanta ka sheekeynayaan waxay soo jiidatay 4 arrimood oo in la sameeyo ay codsadeen dhakhtaradu arrinta koowaad waxa weeye in dadka si ay uga hortagaan cudurkan inay dhowr goor maalintii ay faraxashaan falaxalkii caadiga ahaa fardhaq inay fardhaqdaan dhowr goor muddo 20 sagada fardhaqaana waxay ku tilmaameen in loo fardhaqdo si shaamil ah yani sidaas iminka arkayno marka farta saa loo dhaqo in farahana la isdhex geliyo oo meelahana la dhaqo meelahaas faraha dhexdooda ana la dhaqo arrintaas waa arrin cajiib weyn arrinta labaad waxay sheegeen in sanka la qooyo arrinta afaraad waxay sheegeen in biyo diiran afka la geliyo la luqluqdo lana cabo amba la qooyo ilaa guriga oo biyuhu ay diiranaadaan arrinta saddexaad afaraad waxay sheegeen in wejiga la maydho oo la dhaqo isagana arrimahaas waxay yidhahdeen waxay ka qayb galaysaa ka hortagga iyo yaraynta mushkiladda uu wato corona qariib waxaa noqotay markaa inay inoo sheegayaan dhakhtaradu mabaadi'da iyo abjadiyaadka iyo alifba'da diinta islaamka wuxuu noogu yeedhay inaan weysaysano aan weyse qaadanno maalintii ugu yaraan 5 jeer markastii oo weysadu inaga jabto salaadeena lama aqbalayo biduuni wuduu qofka doonaya inuu quraanka ilaahay akhristana waa inuu wuduu qaataa waa wanaagsan yani qofka muslimka ah inuu jadiidiyo uu cusboonaysiyo weysadiisa yaa wanaagsan marka annaka iyo biyuhu problem inama dhex yaalaan muslimiinta aad baan cilaaqa ula leenahay xagga biyaha marka intaa la maydho la luqluqdo waa wax ka mid ah shareecadeenna islaamka marka arrimaha ay soo jiitay bay ka mid ahaayeen arrinta kaleeto waxaa jira dagaal dhaqaale oo ku jira arrinta corona maaragtay dagaalka dhaqaale wuxuu dhex yaalaa reer galbeedka iyo Chinaha marka dagaalku maaha dagaal cudur uun jirro uun maaha dagaal dhaqaalena uu ku jira waxaa jira oo kale dagaal mustaqbalka la isku hayo maamulka dunida oo waxa hore loo sii sheegay in ay dhici doonaan cudurro lama filaan ah oo laakiin lagu samayn doono laboratoriyo amba shaybaadhada laga soo fasixi doono si bini aadam badan loogu tirtiro fikraddaasi waa fikrad hore looga warramay waxaa jira arrin afaraad iyadna muhiim ah waxa weeye dagaalka tiknolojiga oo iminka maraykanku iyo shiinuhu ay ugu jiraan meeshii ugu dambaysay waxaa dhahdaa maraykanku wuxuu aad u yaqaanaa ikhtiraca wax soo saarka shiinuna wuxuu aad u yaqaanaa waxa la soo saaro inuu wax ku daro marka mubtakir weeyaan shiinuhu yabtakiru walaa yakhtaricu wax ma sameeyo wixii la sameeyey buu qurxiyaa kuriyaa kobciyaa dagaalkaas wuxuu ku hayaa maraykanka cabsi badan wadano kaleetana khadka way soo galeen marka corona uun maahina waxyaala badanoo badan baa adduunkan kusoo xoogle marka inaan sidaa u fahno oon u fahmin sida yara sadxiga ee looga sheekeynaya leeyahay dagaalkani waa dagaal maaragtay rabbaani oo maadaama ay shiinuhu muslimiin laayaan ilaahay baa ka aqoonsanaya bismillahi raxmaan raxiim arrintu intaas walbaa maxaa yeelay
وارونو وحبضان قلدي سميان جينو كوا كدر جينها يا جرا وأباهن إنه إلهي كأربوي جينها دباتة أو مسلمين تكوها يا وحكحن ضد مسلمين دباتة أي كوهيان وحنمك أخرنا التقرير عن بالرابورت laga soo saaray dalka Masar 100,000 oo qof baa xabsiyada Masar ku jira 35,000 dadka xabsiyada ku jiray waa jaamiciin weey 10,000 waa master iyo doctorate bay haystaan 3,200 oo qof oo ku jira xabsiyada Masar aqoon dheer bay leeyihiin oo waxay ku jiraan culumada ugu faraha yar ee dunida meelaha waxaa lagu adoonsanayaa madaxweynihii si sharci loo doortay baa xabsiga ku dhintay maalin kasta xabsiga waxaa ku dhinta boqolaal qaadiyaal ahaan jira judge xaakimiye ahaa ducaat ahaa culimo ahaa waxayna waxaasi ka dhacayaan waa dalka Masar marka arrimahaas waan ka hadli doonaa maanta waxaan rabnaa inaan mawduuca aanan caatifiyeyn marka koronaga aan ka hadlayno aan uga hadlano si loojiga oo maskaxa anaka diinteenu إلهي ماها إله لا دغالما بشرك إلهي ماها إله مارته كريم وددك اسكلا لا يماها waxaan sunan bay ku yimaadaan sunan baan looga hortagaa daacunku sunan buu ku yimaadaa sunan baa looga hortagaa